ka waran haddii cunug adiga aad dhashay uu adeerkiis laxmi intuu dilay meydkiisana kaa qariyey muddo aad baadi goobaysay ugu dambayn aad ogaatay inankaaga in mas-uuliyadda adeerkii uu dilay isaga uu lahaa walaalkaagana sidaasaytu uu ku baxay maxaa inankaaga go'aan aad ka qaadan lahayd qisadan waxay ka dhacday baqdaad dalka siiti ciraaq waxaana ay qusaysaa inan lagu magacaabo towfiiq aabbihii hooyadii iyo walaalihii iyo baqdaad kula noolaa noloshooduna waxay iska ahayd mid iska macquul ah markii uu soo hana qaado soo qaangaaray qof mas-uuliyad qaadi karana uu soo gaaray towfiiq waxyaabaha xiisaha uu u hayay xilligaasiti waxa ay ahayd ganacsigiin halkaa uu u jeesto qof ganacsanaya u noqdo sanadii 2000 waxaa dhacday in aabihiis towfiiq xilligaasiti lacag intuu ka soo qaatay adeerkii oo suuqa ku jiro ganacsada ahaay uu xilligaasiti u yimid towfiiq maadaama waxba uusan kala garanaynin laakiin xiise uu haayo qof ganacsi inuu bilaabo uu doonayo uu u ekaa adeerkii uu xilligaasiti u imaaday waxuuna ku dhahay adeer aabbayaan lacag ka soo qaatay waxaan rabaa inaan suuqa ku soo biro aan ganacsado adigu maadaama suuqa waqti aad iiga horeyso waxaan doonayaa inaad garab isiiso adeerka xilligaasiti waxa uu dhahay inankaygu waan ku soo dhaweynayaa suuqana waa ku fahamsiinayaa oo aniga ku tababarayo waadna markaas shaqaysanaysaa adeerkan xilligaasiti waxa uu barayba sida alaabaha loo soo iibsado lisaga iibgeeyo sida markaa macaamil waxyaabaha ganacsiga idil quseeyo yaa la wada baray waxaana adeerku uu sii sameeyaba in inankiisa towfiiq uu sii baray dadyo kale oo suuqa ku jiray oo garanaya oo ganacsato ah si haddii macaamil uu uga baahdo biri ka maalin ee u sahlanaato inay isla samay macaamilaan towfiiq suuqi waa lagu soo dhoweeyey si fiican yuu u hana qaaday sanooyinkii ugu horreeyena waxa uu samaynayaba horumar yuu ganacsigiisa samaynaya dhaqaale xoogaha kuriisha fiican yuu sameeyey adeerka iyo inankaaniiti towfiiq ganacsigooda sidaasaytii yuu kusii hana qaaday oo dad shuraakaha wada ganacsadayay ahaayeen 2003 waxaa jirtay xilligaasiti in baqdaad dowladdii ciraaq ka jirtaba gebi ahaanba ay burburtay oo maraykanka iyo xulafadiisa ay soo weeraraan halkan baqdaadna dhibaatooyinka magaalada ay wajaheen iyo ka mid ahayd towfiiq xilligaasna isaga maadaama ganacsigiisa adeerka uu kala dhexeeyey uu kuriisho fiican oo uu sameynaya waxa uu istusay towfiiq in xilligaasiti isagoo ka faa'iideysanaya dhibaatooyinka ka jira ciraaq maadaama xilligaasiti ciraaq ay wajahaysa dhibaatooyin dagaalada guud marka laga soo tagay in qabaa'ilaadka dhexdoodana argoosi ay ka dhacayeen oo maadaama halkaas maamulkii ka jiray uu burburay dadka iyaga dhexdoodana isdhibaateynayeen towfiiq waxa uu istusay in jaaniskaasiti uu ka dhex faa'iideysto maadaama hammi uu galay in lacagtaaniiti idil uu la wareego waxa uu istusay in adeerkiis ay tahay xilligaaniiti xilliga ugu muhiimsan ee nolosha uu dhaafin karo si lacagahaaniiti idil uu la wareego towfiiq qorshihii uu soo diyaarsaday 2003 xilligaasiti waxa uu u imaaday adeerkiis isagoona ku dhahay adeer waxa aan doonayaa inaan safar ganacsi aan wada galno goob halkaaniiti yaan gaaraynaa heshiis ganacsi halkaasiti ka soo galaynaa si ganacsigeena uun sii ballaarino adeerka xilligaasiti towfiiq waxaa lagu dhahay adeer xilligaaniiti suurtagal ma noqon karto in aan safri karno lacagna aan qaadan karno nafsadeeniyaaba halis geli karto ma suurtagelaysa xilligaaniiti in aan safri karne haddii halkaaniiti badqab aamin aan ku dareemayno halkaaniiti inaan joogno ilaa waqti waaye safarkaaniiti mar kale nooga dhigi u dhahay adeerka towfiiqna xilligaasiti waxa uu ku adkeeyey adeerkiis u dhahay maya adeer safarkaaniiti waa muhiim halka waqtigaaniiti inaan galno oo dadkaasiiti waa dad aamin ah goobtuna ma dheero waqti gaaban ilaa iyo muddo xoogahay aan badnayn iyo nagu qaadanaysaa oo soo laabanaynaaye soo baxay u dhahay safarka aad yuu ugu khalkhali dadkaasiitina aamin waayuu dhahay towfiiq adeerka waa uu iska aaminay inankiisa waxaana dhacday in safarka isku soo diyaariyaanoo ay guda galaan towfiiqna waxa jirtayba in marka uu sii sahansaday waddo saxara ah oo socodkeedu xoogaha dadka uu ku yaryahay in halkaasiiti adeerkii uu la maray waa ay soo baxeen magaalada markay ka soo fogaadeen xoogaha waddadaasiitina ay qaadeen xoogahana magaalada ay ka soo baxeen waxa dhacday in towfiiq gaariga uu joojiyey xilligaas dhiilo badan adeerka kuma aysan jirin ismana lahayn waxaan ku dhibaateynayo inankaaga adeerka adiga aad u tahay gaarigii joojiyey towfiiq bastoolad xilligaasiti uu watay uu la soo baxay
waxaan adeerkiisu ku dhuftay dhowr xabadood. Tawfiiq maadaama uu xaqiiqsaday in adeerkiis uu geeriyooday xabadihii uu ku hubsadana suurtagal ay noqotay in nafta ay dhaafiyaan, waxa uu ka qaatay xilligaasiti adeerkii lacagihii uu watay, caddeymana waa uu ka wada qaatay idhikaaradii waxyaaba uu haystay. wax kastoo caddayn noqon karana waa uu ka baabi'iyey gebi ahaanba oo meydka waa uu ka soo ag qaaday. Meydkan waxa uu ku tuuray waddada dhinaceeda meel saxara ah. Tawfiiq magaaladii dib ugu soo laabtay Baqdaad. xilligaas waxa uu ka walwalsanaana waxa ahayd Tawfiiq arrinkaneeti in la ogaado, waxaanu istusay inay muhiim tahay inta arrinkaneeti aan la soo gudagelin isna weydiinay adeerka halka uu ku dambeeyo, inay muhiim tahay in magaaladaneeti uu ka safro. waxaa si halhaleela marka uu ugu tegey aabbihii qoyskiisa, hooyadii iyo aabbihii, waxuuna ku dhahay anigu halkaneeti ma ku noolaan karo, xaaskayga carruurteydana waan ka haysanayaa, magaalo kale yaan rabaa inaan aado ee Basro, halkaaseeti yaa aamin ah, halkaneeti aaminaad badan kuma dareemayo, ganacsigaygana halkaaseeti badqab iigu sii dareemi karaa, yuu dhahay Tawfiiq. ehelkana waa uu sheegay sidoo kale intii uu garanayay. waxaana Tawfiiq hadalkiisa uu sii raaciyuba dhahayba u sheegay ehelka iyo qoyskiisa inuu dhahay aniga ganacsiga adeerkayga aan la lahay qaybtii aniga igu aadanayd waa qaatay sheerkayga, saasna uu ogaada. qoyska iyo xogaha ehelkaba waa ay la yaabeen. waxa ay weydiiyeen marka xilligaasayta lagu dhahay Tawfiiq aawe adeerkaa. waxa uu dhahay Tawfiiq adeer heshiis ganacsi uu soo galayaaho uu soo laabanayaa, laakiin aniga halkaneeti maadaama badqab aanan ku dareemaynin ma sii joogi karo, mana sii sugi karo adeer, yuu dhahay Tawfiiq aniga waa aan baxayaa, halkaneeti waa kaa. si halaleelu ku baxay Tawfiiq, waxaana u sheegay ku dhahay qoyska iyo ehelkiisaba waxa markii aan aadaya magaaladaasaytii Basro, halkaaseeti aamin ku dareemayaa, waa baxay sidaaseeti u ogaada. arrintu xogaha bilowgii dhiilo badan ma aysan dhalino. waxaa markaa jirtaba Tawfiiq Basro dhankaaseeti ma uusan aadin ee magaalo kale oo lagu magacaabo Ibril oo kurdiduna ay ku badan yihiin Ciraaq, halkaaseeti yuu aaday magaaladaasaytii kale. adeerkii waxaa markaa dhacday in muddo markii la weysnaayay ilaa iyo dhowr isbuuca in xaaskiisa iyo carruurtiisa ay isweydiiyaan halka marka uu ku jiro, aabbahood xilligaasaytii halka uu jiro iyo isweydiiyeen. waxaa markaa dhacdayba in sidoo kalena Tawfiiq aabbihiis iyo ehelkii iyo gebi ahaanba intii markaa garanaysay adeerka in xilligaasaytii baadigoob loo galay in bal meel un lagu soo sheego. waayo bilowgii waxaa la islahaa in waddadu suurtagal amisan ahayn inuu imaan karo, jekboyntiyaa jiray xilligaasaytii Ciraaq oo magaalooyinka ma sahlanayn in magaalo kale aad kaga gudbi karto si sahlan. waxaa la islahaa jekboyntiyada ama xilligaasaytii lagu celiya, maadaama waqtigu uu dheeraaday ilaa iyo dhowr bilood arrinta ay gaartay. ehelka iyo qoyskiisaba adeerkii waxaa markaa dhacday in baadigoob xooggan loo galay. xilligaasaytii waxaa jiray in meydadka maadaama aad u badnaayeen dadka geeriyoonaya Ciraaq, si dadka marka aan la garan karin xataa meydadkooda meelaha laga helo ehelkooda ay xoogaa u sahlanaatay inay heli karaan, waxaa jirtay goobo meydadka lagu keediyo. sawiraan ayaa laga qaadaa meydka, halkaaseeti yaa lagu keediyaa. sawiraantaaseti dadka goobtaaseti meydka lagu keediyo yimaadayaa la tusaa si markaaseti u garan karayaan, haddii ay gartaan meydkooda ay u qaataan. waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah Tawfiiq aabbihiis uu tegey magaalada Baqdaad meel meydadka lagu keediyo oo xilligaaseti isagoo ka baadigoobaya walaalkii. sawiraan kala duwan yaa la tusay. waxaana dhacday ilaa iyo sawiraan dhowra markuu arkay kadib Tawfiiq aabbihii in sawirka walaalkii uu ku arkay markii dambe waa uu qaracmay. meydka walaalkiisna waa uu xaqiiqsaday in meesha marka uu yaallo Tawfiiq aabbihii. Tawfiiq aabbihiis shakiyaa yara dib u galay xilligaaseti wax uu ka shakiyey inankiisa, maadaama hantidii isaga markaa kala dhexeeyay ganacsiga waan qaatay uu dhahay adeerna ganacsiguu aaday waa uu soo laabanayaa. xilli uu soo laabanayo cadna uusan u sheegin aabbaha Tawfiiqna le xilligaaseti waxa dhacday shaki badan inuu galay, inankiisana marka aad uu uga shakiyey. laakiin maadaama caddayn badan uusan heenin, wax badanoo saasa ma uusan sheegin aabbaha Tawfiiq dhalayo. waxaa markaa dhacday in meydkii la soo qaaday, la asturayo, sidaasaytii markaa lagu duugay.
adeerka la dilay waxa uu lahaa xaas iyo caruur yaa u joogay. Waxaa dhacday in tuuno badan xilligaasaytii la isweydiiyo maadaamana Tawfiiq hantidii dhan uu wada qaatay. Shaki xooggan iyo arrintu markaasii noqotay isagoo markii hore dhahayay aniga sheerka aniga qaybta inta igu aadan keliyayaan qaatay adeerna ma sugi karo in hantidii dhan uu wada qaatay. Shaki badan iyo dhalisay adeerka la dilay ilmihiisa waxa markaasaytii ay aamineen in aabahood uu dilay Tawfiiq. Sidoo kale ehelka waxyaabaha ay ka shakiinayeen waxa ay ahayd in Tawfiiq markii uu soo laabtay si halhaleela xaaskiisa iyo caruurtiisa keliya uu ku watay walaalihii aabihii iyo hooyadiina in magaaladaaniti Baqdaad uu isaga nafsadiisa kala baqay gebi ahaanba meeshaasaytii iyaga kaga cararayo nafsadiisa keliya iyo xaaskiisa caruurtiisa uu la cararay. Shakigo idil isagoo markaa sidaasaytii u jiro sanad kadib 2004 Tawfiiq dib uu ula soo xiriiray aabihiis waxaana uu ku dhahay aabo waxa aan dareemayaa inaan gala qalad. Maxaa dhacay oo wiilkaygu qaladkaa gashay maxay tahay? Tawfiiq waxaa xilligaasaytii aabihii uu ku dhahay aabo waxa aan dilay adiga walaalkaaga ah sababta adeerkay aan u dilayna wax kale ma ahan hunguri ganacsiya ay galay sidaasaytiin u ogow magaalada idiin sheegaya ee Basrana ma aadin magaalo kale oo lagu magacaabo Ibril halkaasaytii yaan aniga aaday nolosheeduna waxa halkaasaytii ay noqotay mid ku hagaagtayo ganacsiga lacagtii aan soo qaatay waxa aan ku sameeyay inaan qasri weyn oo guri aan ku gatay gawaarina sidoo kale aan ku iibsaday oo xamuulka waxyaabahaasaytii qaado sidaasaytii u ogow yuu dhahay. Waxaan uu sii raacay xilligaasaytii Tawfiiq uu dhahay aabo waxaan doonayaa inaan kuu imaado ama adigu u imaw. Tawfiiq aabihiis xilligaasaytii waa uu ka naxayo shakigiisii hore iyo wiilkiisa hadalkaaniita hadda u dhahayo xaqiiqiya wixii dhan isku sii noqdeenba in inankiisa adeerkii uu dilay isaga walaalkii. Aabbaha waxaa xilligaasaytii Tawfiiq uu ku dhahay inankaygiiow meeshaad iska joog waan is arki doonnaa haddii arrintaaniita intay ka digayso ha ii imaanin mana kuu imaanayo. Waxaa dhacday in 2005 waqti ay ku aadaneed adeerka la dilay ilmihiisa oo xilligaasaytii ilmo awood la ahaayo waaweyn in marka ay soo baxeen soo heleen raadkii Tawfiiq magaalada uu ku noolaay way u imaadeen isagana goobtii ku dileen gurigiisa waa ay gubeen sidoo kalena gawaaridiisa gibi ahaanba waa ay gubeen. Xaaskiisa waxay xilligaasaytii ay la baxsatay caruurta waxaana caruur ay haysteen 2 wiil iyo 2 gabar. Xaasku waa ay carartay qoyskeedii dib ugu laabatay waxa markaa ay dhahday ninkaygii waa la dilay waxaan doonayaa aniga iyo caruurta inaan adinkiina la noolaano. Qoyska gabadha xaaska Tawfiiq waxaa xilligaasaytii dhaheen annagaaba nolosheena markaa ay iska adag tahay caruurtan adiga aad wadatana annagu ma kafeyn karno waxay u baahan yihiin biil daryeel suurtagal ma noqon karto inaan xamili karnee waxa aad samaysaa adigu noloshaada nama dhibayso marka horeba waa naga mid ahayde adiga keliya noo imooyo qoyska dheheed caruurtaanna ninkaaga hadduu geeriyooday aabbihii ilmahan awoogood isaga geey sidaasaytii yaa marka ku wada joogi karaa. Gabadha waxay tiri maya anigii ilmahayga ma kala harno ilmahayga oo xilligaanaytii waa xilli igu baahi badan yihiin oo kale waxaan doonayaa in noloshooda aniga aan sii korsado. Qoysku waxa markaa ay dhaheen maalmo waad nala sii joogi kartaa laakiin waqti dheer inay suurtagal noqon doonin ogow caruurtaanna waxaa kugu habboon in aad isaga celiso qoyska ay ka soo jeedaan ninkaaga aabbihii awoohood ilmahanaytii inaad isaga celiso yaan talo kugu siinayna. Maalmo kadib gabadhu waxa markaa ay noqotay in hadalka ay garwaaqsato waxaana go'aan ay soo qaadatay in Baqdaad dib ay ugu soo laabato caruurtii awowgoodii markaa u keento. Waxa ay ku tiri adeer maadaama inankaagii la dilay uu geeriyooday ilmahana ay haatan weli korriishay u socoto ilmahanaytii waxa ma aysan halaynin haddii inankaaga adiga walaalka adeerkii uu dilay ilmahanaytii wax dembiya ma lahan waxaan doonayaa in gurigaaga aan ku soo biiro ilmaha halkaanaytii aan ku korsado iyo xaaska dhahday. Tawfiiq aabihiis xilligaasaytii awowga waxa markaa uu dhahay ilmahan aniga wax dhiba iguma haayaan guriga waad keensan kartaa halkaanaytii waad ku noolaan kartaan
laakiin dhibka jira wuxuu dhahay anigu howlgabyaa noqduu dhahay ma kafayn karo carruurta dhaqaale badan ma awoodi karo nolosha way adkaan doontaa oo kale ogow sidoo kale xaaskaygana dhulyaali iska tahay sariirtaasunba iska jiiftaa gabadha waxay tiri adeer dhib ma lahan anaga nolosha iska raadsanayno laakiin guriga aan kula noolaano carruurtan iyo anigana waxaan rabaa inaan bal agtaada aan amni ku helno aadna ilaaliso tawfiiq aabiis xilligaasiiti waxa uu damaanad qaaday uu dhahay gabadheydii adiga iyo carruurtaadaba carruurtan aniga awoowaha aan u ahay agteeda amniyaad ku dareemi doontaan oo ehelka waan idinka ilaalinaya oo nalama dhibaatayn doono gabadha waxa marka ay noqotay in bal maadaama hooy ay heshay haddana ilmaheedii si ay u korsato nolol inay u raadisay noqotay waxa ay bilowday xilligaasiiti in raashin intay kariso guriga bannaankiisa ay ku iibiso sidaasiiti markaa xoogaha muddo ku wadwaday nolosha waxaa dhibsaday oo hadalhayn markaa ay noqotayba in deriskii iyo dadkii ehelkii garanayay in gabadhii xoogaha markaa tawfiiq aabiis lagu dacaayadeeyo la dhahaa ilmaha adiga awoowaha aad u tahay oo kale ma u quuri kari weyse inaad bal wax u hurto oo noloshooda aad kafayso waa maxay inankaaga xaaskiisa ee waxyaabaha raashinka bannaanka ku iibinaysa guriga hortiisa maxay tahay tawfiiq aabihiisa hadalkaasiitiyuu dhibsaday waxa uu imaaday gabadhii waxuu dhaa markaa gabadheydii i dhegeyso aniga hadallo badan oo ehelka iyo dadka xaafadda igu dhahayaan yaanan u dulqaadan karinoo in la idhaho waa dhibsanayaa carruurtaada ma kafayn kartid miya awooga aad u tahaye anigana waad ogtahay xaaladeeda dhaqaale ma awoodi karo carruurtaaniti aan ku kafeeye waxaad samaysaa haddii aad ganacsanayso suuqa hore u galo suuqa halkaasiitiyaa lagu ganacsadaa tag guriga hortiisa wax danba ha ku iibinu dhah si hadalkaniti uu iga yaraado gabadha waxay tiri haye waaya adeer suuqayaan iska galayaa waxa marka ay isku dayday in gabadha bal ganacsi ay bilbilowdo xilligaas caqabadda waxa ku noqonayana waxa ay ahayd gabadhaniti tawfiiq uu ka geeriyooday in waxba dhaqaalaha gacanta isan ku haynin laakiin waxa isusay qaabkay wax ku bilaabi karta inay tahay in alaab deyna ay soo qaadato ay sii iibiso sidaasayta un ay tahay in bal alaabtaas inay caddayso lacagta dib u celiso faa'iidada iyadoo ay qaadato sidaasaytii marka inay ganacsi ku samayn karto dhowr meel ay tagtay hadalka ugu adayga la weydiinayana waxa ay ahayd sideen kugu aamini karnaa alaab aan kugu dhiibi karnaa ilaan qof damiina kulama socdo adigana kuma garanayne sideen kuu siina alaab suurtagal ma noqon karto hadalkaasiitiyaa meel walba lagu soo heray ilaa ugu dambayn maalin maalmaha ka mid ah oo dhowr maalin suuqa ay ku laalaabatay yaa waxa dhacday in gabadhaniti ee xaaska tawfiiq ay xilligaasiiti dukaan nin haysta ay u tagtay xilligaasiitina ninkaasiiti waxaa dukaanka la iibinayay oo la gadayay xaaskiisa way u tagtay way u dan sheegato waxay ku tiri waxaan doonayaa inaan ganacsiga ku soo biiro ma haysto wax dhaqaale ah waxaan raba alaab inaa i deymiso alaabtaasna intaan soo caddeeyo lacagta dib aan kugu soo celiyo ninkaasiiti waxau ku dhahay see kugu aamini karaa suurtagal ma noqon karto haddan yaan iskeen horeyso suurtagalna ma noqon karto inaan alaab intaan ku deymiyo si fudud aad iska baxdo xataa ii soo celin weydo lacagteedii yaan u haystaa oo kale ninkaasi dukaankii xilligaasiiti sidaa dhahaya xaaskiisiyaa intay gabadhii u damqatay yaa waxay tiri ninkaygiiyow gabadhaninta alaabta sii anaa ka damaanada waana iska aamini waayo xilligaasiiti duruufta ka muuqata siday ugu baahan tahay in ay ganacsi bilowdo iyo ninkaniti dukaanka le xaaskiisa gabadhaasiiti baahideeda sidaasi way dareentay ninka waxaa markaa u dhahay uu u sii raacay xaaskiisa haddaa aad damaanato lacagtaniti haddii aan ku khasaaro oo dib ay igu soo laaban weysayaan ka rabaa aniga iga rabtaayay tiri alaabtii igu horreysay uu soo deymiyey gabadhan waxaa markaa ay samaysay in alaabta xaafadaha ay ku wareejiso oo ay wareerin oo kale markaa looga iibsado sidaasaytiya ku shaqo bilowday waxyaaba kale sii samayn jirtana waxa ay ahaydba in xitaa mararka qaar haddii dadku ay diin kaga qaataan in ay u ogolaato aysan u diidi jirin laakiin shuruud waxa ay ku xiri jirtay marka aad ii keenayso kale lacag dulsaar ah lacagta shaygan haatan uu gadan yahay bil kadib oo kale dulsaar ya ii soo saaraysa ayay dhihi jirtay sidaasaytiya ku bilowday alaabtii ugu horreysay waa ay caddaysay agtii dibbiyay ugu celisay lacag alaab kale ay ka soo qaadatay haddana gabadhan xaafadaha ay ku wareejin jirtay alaabaha
ganacsigeeduna waxaa markaa uu noqday in uu u bulaalay oo faa'iido badan iyo samaynaysay caruurteeda xilliga city waa ay soo hana qaadeenoo waxaa jiray in lagu magacaabo haadi oo xilliga city inamadeeda ugu roonayd aad 14 15 soo galayaba in uu ka garabsiin jiray in alaabta hooyadiis uu la qaado suuqyada iyo xaafadaha uu kula soo wareejiyaba waxa markaa i iibsaday gaarigacankeena kaanayti haadi alaabta ku kaxayn jiray ku riixi jiray hooyadiis isaga xaafadaha iyo ku soo wareegi jireenoo sidaas tii markaa ganacsigoodu uu ahaa waxa dhacday gabadhaanayti xaaska tawfiiq uu ka geeriyooday ninka dukaankii alaabta ay ka soo qaadanaysay in maalin maalmaha ka mid ah intuu u wacay uu dhahay fursad yaan ku hayaa kaalay way u tagtay waxaana ninka sayti dukaanka lagu ku dhahay fursad ganacsi yaan ku hayaa dukaan deriskayga ah yaa ninkii lahaa uu geeriyooday xaaskiisana fursad uma hayso in caruurta intay koriso ganacsigan ay timaado iskuma kari karto waxaana ay igu tiri qof aamina dukaankii iigu dhiibe ka waran haddii dukaankaanayti intaan kuu dhiibo faa'iidadana aad kala qaybsataan xaaska tawfiiq xilliga city waa ay aqbashay si halhaleelah maadaama baahi ay u qabtay in ganacsigeeda ay sii hormariso sidaas city markaa ganacsigeedii uu sii hana qaaday xaaska tawfiiq uu ka geeriyooday waxyaabaha markaa wanaagga ay samaysana waxa ay ahayd in gacanta ay ku qabatay ninkeedii geeriyooday aabihii iyo hooyadii guriga ay kula noolayd noloshoodu maadaama xoogaa iska liidatay ayada dhaqaale ay soo galayso qoyska noloshoodu waa ay badashayo ay gacan qabatay gabar qalbigeedu iska wanaagsan yahay ayuu ahaa ganacsigeedii waa uu dhaqaaqay dalabaadka xaafadaha laga soo dirsadana inankeedan ugu rono haadii u dhiibi jirto dhihi jirtay geey alaabaha oo kama aysan tanaasulin alaabada xaafadaha ay ku wareejin jirtay dukaankana iyadaa fariisato dukaan kale ay furatay iyada gaar ay u leedahay dukaankaas iyadaa lahayd faa'iido ka soo baxdo kan kalena marka ay iibiso alaabaha wax dhan faa'iido ka soo baxdo sheerka waxa kala qaybsan jiray iyada iyo gabadha dukaanka markaa iska leh sida city noloshooda markaa ku socotay ilaa laga soo gaaro 2018 inankaanayti haadi maadaama garab xooggan uu ahaa hooyadii waxaa dhacday in balwado uu bartay waayo nin ay saaxiibo ahaayeen xilliga city yaa waxa uu baray balwad iyo qamri inuu isticmaalo haadi waxa uu noqday in nolosha markaa uu ka dhaco habeenkiyo idil balwad iyo qamri iyo waxyaabahaas ku mashquulsan yahay maalintii dhanna waaba uu ka dhacsan yahay hooyadii maadaama noloshii inankeeda ay aragtay waa ay xanaanatay oo waxay ku tiri hooye nolosheena ha burburinin noloshii hore iyo waxyaabihii aan soo marnayna waad ogtahay in nolol adag aan soo marnay haatan meesha noogu fiican ee nolosha maroosaa ganacsiga noo kala socdo garaba ii tahay way canaanataa mar way u caqli celisaa haadi waxyaabahaasi hooyadii ay u sheegayso idil waxba kama galaba war qof maqlaaya ma ahanba hooyadiis waa ay ka quusatayba haadi saaxiib xilliga city waxa uu la ahaay oo gurigiis ugu tagi jiray in lagu magacaabo salaam xaas iyo 5 caruur ayaa markaa u joogay guriga city habeen walba tagaa balwadii isla isticmaalaan qamri isla cabaan noloshooda sida city ahayd haadi iyo salaam gurigooda derisii wada ahaaba waxaa markaa dhacdayba in salaam markii dambe shaqo uu ka helay ciidamo dalkaas city Ciraaq laga garanayo iyo shaqo markaa ka helay oo military ah waxaa markaa ay noqotay noloshiisu isbedeshay haadi laakiin weli waa sidiisii oo balwadda city habeen walba uu isticmaalaa maalin walbana waa uu ka dhacsan yahay salaam guriga waa uu ka maqnaan jiray oo waqtiyo badan uu ka maqnaan jiray caas oo bushra la dhahayo qabay haadi guriga waa uu tagaa uun sidii uu tagaa isagoo saaxiibkiis uu ka maqan yahay waxaa dhacday in damac uu ka dhexdhashaba haadi iyo bushro xaaska salaam taleefanada ay kala qorteen way wada xiriiri jireen gurigii ugu tagtagi jiray qof deriska ka mid ah ya xilligaas ay ka sheekiyay ku noqnoqshada badan ee haadi gurigaanayti salaam uu ku noqnoqonayo salaam maadaama uu maqan yahay oo ciidanimo uu ku maqan yahay xilligaas ninka deriska waxa uu wacay salaam iyo wacay waxa uu ku dhahay iyahow xaaskaaga saaxiibkaaga haadi weli adigoo guriga ka maqan iyo tagtaga dhowr mar yaa iyaga isla qoqosla isla jooga aan arkay xaaladdan niyo ilama hagaagsanaya balka warqab xaaskaaga xilligaas salaam waxa uu sameeyay in xaaskiisa bushro uu soo wacay uu ku dhahay arrintaaniiti la sheegay maxay tahay haadi gurigiga keenayo ma jirtay dhahdaba salaam waxa wacay haadi waxa uu ku dhahay saaxiib
gurigeyga weli miyaa sii tagtaa anigoo ka maqan sidee wax u jiraan oo kale haddii waxa markaasaytuu dhaha mayniyahow saaxiib guriga waan iska agmarayo keliya marka laakiin maba tagtagaba sidaasaytii salaam laakiin waa uu shakiyey xilligaasaytii kadib waxa dhacday in bal xaaladda uu si markaa control oo kale isku dayay bal gurigiisa uu ka warqabo haddii weli waxa isla sii xiriirayeen xaaska saaxiibkii salaam ee bushro taleefonkii ka wada xiriirayeen bushro waxa marka ay ku tiri haddii inay dhahday iyo aniga ninkaaniiti carruurta aan u dhalay ee salaam ma jecli dhibaatooyin badan yaan ka tabanayaa haddii aad naga dhex saarto ani adiga aan isku soo harno iyo waxaa markaasiiti noqonaysaa in bal nolosha aan hore u sii wadano xilligaasiitina haddii waxa marka uu ku dhahay dhibka aan wajahayna waxay tahay ani guri ma haysto dhahay caqabada siiti aan wajahayna meena ku wada noolaano suurtagal markaa ma noqon karto salaam xaaskiisa bushro waxa markaa ay tiri in ay dhahday niyo anaa guri leh gurigaasiiti aan wada degaynaa waan kugu saxiixaya xitaa haddii noloshaaniiti aad iga dhex saartee waxaa samaysaa nolosha ninkaaniiti salaam i dhaafi iyo ani adiga markaa jacaylkaagan dareemayae ani adi asla noolaano haddii waxaa markaa dhacday in uu istusayba in naqshad uu u qorsheeyey in bal ninkaaniiti salaama uu dilo si xaaskiisa marka uu kala wareego waxa uu sameeyey in uu maalin maalmaha ka mid ah ninkaaniiti haddii awowihiis intuu u imaaday uu ku dhahay awowe tubada gurigeena ma shaqaynayso waxa markaasiiti jirto in ninkaaniiti deriska ah ee salaam in tubadii markaa uu gurigooda maadaama ay soo dhex marto godyuu meesha ka qoday tubadii dhaawacuu gaarsiiyey man uu hagaajin u tag ee bal la soo hadal uu dhahay waa xilligaasiiti waxa uu dhahay niyow inankeygu adi maa la soo hadashiido waad u tegi kartaa deriska waa kanaah aad waxa uu dhahay abbo aniga ogaha adaa iga yara hagaagsan inaad markaa ninkaaniiti aad u tagto aad tiraahdo bal maxaa tubada aad u dhaawacdo haddana aad u hagaajin weyse anigu ma doonayo buuq inaan dhex galo ayuu dhahay awow waxuu dhahay haye anaa u tagaayo beriyaa u tagaayaa u dhahay haye waayuu dhahay waxaa dhacday in marka ugu dambaynba awowihii uu gurigii deriska u aaday salaam xilligaasiiti waa uu soo laabtay ciidankii iyo howlihii ku maqnay oo ka soo laabtay guriguu joogay awowaha guriga markuu tegey salaam yay wada sheekaysteen oo waa issalaameen waxuu dhahay markaa inankeygiio waxaa markaa inankeygi haddii uu iisoo sheegay inaad bal adiga gurigaaga intaad god ka dhex qaday tubada aad dhaawacdayo adina hagaajinina sidee waxu jiraan salaam wuxuu dhahay adeer aniga ciidannimo iyo waxyaabaha saytiyaanba ku maqnay xaafadda maalmahanaytu idilma joogin maanta la inimaaday sidee waxu jiraanoo tubadanayti la dhaawacaa sheegayso maxay tahay awowaha xilligaasaytii xoogaa yar shakiyaa galay awowaha iyo salaam oo xilligaasaytii wada jooga yaa waxa dhacday salaam mid ay saaxiibo yihiinoo gurigu uu imaan jirayoo in marka uu xilligaasaytii u yimid xilligaas waxaa wada fadhiistayba oo guriga wada joogay daaradda salaam awowaha oo haadi dhalay iyo salaam mid ay saaxiibo yihiin oo u imaaday bushro waxay telefoonku wacday haadi oo waxay ku tiri xilliganiiti waa xilli aad ka faa'iidaysan karto qorshahaaga waa uu joogaa salaam waxaan doonaya inaad u dhammaysayaan doonayaa haadi waxau dhahay yaa la joogo uu awow aan ka ahayn waxay dhahday markaas inaan qof saaxiibkiisa u imaaday haadi wuu yara baqay oo wuxuu dhahay bal ninkaas markuu ka tago saaxiibkii yaan samaynaya inaan bal salaam aan dilo haadi wuxuu qorshe hoosta ka wato uu bushro uusan u sheegin in awowgiisna uu doonayo inuu meesha ku dilaba bushro waxay ku tiri xoogaha kadib ay ku soo celisay niyow hawshan maanta inaad qabataa muhiima maanta yaysan dhaafin isagoo baqanayo go'aan soo qaatay ninkaaniiti haadi wejigayuu maas ku soo xirtay face mask maaskaro bastooladiiu soo qaatay guriga albaabkii ka furta bushro waa uu soo galay xabado yuu toos u bilaabay wuxuu halkaasi xilligaa ku joogtay awowihii ninkaaniiti salaam ee saaxiiba ay ahaayeen iyo salaam saaxiibkiisiyuu dhowr xabadood ku dhuftay albaabka kama uusan bixin haadi xilligaasiiti waxa uu ka booday derbiga guriga dhabarka dambe halka ayuu u booday oo uu soo wareegsaday gurigiisiyuu iska galay xaafaddu lagu buuqsan yahayo qof xilligaasiiti aan waxba ka warqabin oo kale iyo intuu haadi guriga ka soo baxay oo dhaha maxaa dhacay war awowgaa intii lagu dilay waaye gurigaaniiti deriska ninka saaxiibkaaga salaamna waa la dilay dadka saasay dhaheen waa uu ismurjiyey xilligaasiiti bushran iyadana maadaama ninkeeda la dilay murugtii dhinac isaga riday booliskiyaa imaaday waxaana marka ay noqotay in meydadka halkaasiiti laga qaado oo isbitaalka la geeyo si baaritaan marka loogu sameeyo haddii uun weli naf ay kusii jirto xilligaasiiti waxaa marka ay isdhaheen haadi iyo bushro in bal saaxiibkii salaam meesha uu ka dhex baxayo bushro ninkeedii la dilay haadi iyo bushro waxay aamineen
in noloshooda iyaga keliya isku soo hareen xilligaaniitii xilli ay raaxaysanayaan oo noloshooda iyaga keliya ay wada qaadan doonaan ay tahay. Salaam saaxiibkiis xilligaasiitii waa uu miir daboolmay, awoowaha waa uu geeriyooday, salaamna waa uu geeriyooday. Salaam saaxiibkiis dhiig badan maadaama uu ka baxay, wadnihiisa weli waa uu sii garaacmay laakiin xaalad koomo oo kale ku jiray. Isbitaalka markii la geeyey, dhakhaatiirtu waa ay arkeen, isla markiina qolka emergency-ga saalada ayaa loo sii gudbiyey. Meydadkan kale waa in la asturay noqotay. Laakiin ninkan warbixintiisa markaa isla markii ehelkii iyo looma sheegin, waa la badbaadiyey ilaa ay muddo iyo koomo ku jiray dhowr saacadood qaliin mar lagu sameeyey kabacdi oo uu soo naaxay. Waxaa la weydiiyey bal xaaladiisu marka ay si fiican u soo hagaagtay. Yaa waxaa la dhahay maalinta city maxaa meesha ka dhacay, sidee wax u jiraan oo kale nooga warbixiyey booliska dhaheen. City wuxuu dhahay nin aniga aan garanayo oo salaam saaxiib dhow ay yihiin yaa maalinta city guriga yimid, ninka guriga yimid waan garanayaa. Si toos isagaa markaa falkaaniiti u sameeyey oo wejigiisa maaskar ayaa ku xirnaay, si toos yuu u wada toogtay. Faahfaahinta rasmigana waxa idin sii karto Bushro xaaska Salaam. Bushro waa loo yimid oo booliskii u imaadeen, waxay dhaheen maalinta city guriga yimid. Ma garanayo tiri saaxiibada Salaam ma kala garanayo, qof guriga maalinta city imaadana ma baan garanayaa camal. Ninkan warbixintii sii dhameystiray waxau dhahay Bushro waa ay garanaysaa ninkii guriga yimid maalintaas, iyadaana marka hawshaaniiti inay la jirtaan aaminsanahay. Hawshaana waxaa sameeyey nin habeen walba Salaam ay isla cabi jireen qamri iyo balwada markaa ay isla lahaayeen. Anna goobta waan tegi jiro wuu noogu imaan jiray. Hadalka city markuu dhahay booliska markaa ay noqotay in deriskana ay sii weydiiyaanoo waxaa la soo ogaaday in ninkaaniiti Haadi habeen walba ninkaaniiti Salaam gurigiisa u tegi jiray. Balwada isla cuni jireen, qamre isla cabi jireen. Waa la soo qabtayo, waa la soo xiray Haadi. Waxaa markaa la weydiiyey falkaaniiti lugta uu ku leeyahay. Haadi bilowga waa uu inkiray, wuxuu dhahay ani waxaaniiti ibil kama dambeeyo. Waa la canaantay oo runta sheegaa la dhahay ilaa dhowr rabaaxshaa lagu dhuftay. Runtii marka dambe sheegay wuxuu dhahay waxaan doonayay in xaaskaaniiti Salaam iyo Bushro inaan nolosha la wadaago, laakiin waxa markaasiiti caqabad i hortaagnayd waxay ahayd ninkaaniiti saaxiibkay Salaam oo aan doonayay noloshiisa inaan isdhaafiyo. Boolisku waxa markaa ay dhaheen ay Salaam xaaskaaga ka dilinaysa saaxiibkaahe, awowgaana maxaad u dishay? Awowgay wuxuu dhahay kaalin waxa uu ku lahay in aabahayga magaalada uu ku noolaay ilmaha adeerka la dilay uu u soo sheegay si walaalkiis loogu aargudo. Awowgayga eelka aan u qabay aabbahay xogtiisa inuu sheegay oo la dilay, sidaasaytiya u raacinayo isagana aan u dilay. ninkan saaxiibka la ah Salaamna raacisu isagana sidoo kale markaa ahay. Dilkaaniiti anigaan geystay oo sidaasaytiya markaa u geystay. Waxaa markaa noqotay in ninkaaniiti Haadi maxkamadda ay wajahaan isaga iyo Bushro. Waxaana Bushro lagu xukumay xabsi daa'in, Haadina waxaa markaa lagu xukumay dil. Waxaana arrintaaniiti ay noqotay mid argagax ku dhalisay ehelkii in ninkaaniiti Haadi isagoo aabbihiis hore dil u geystay in isagana dil kale uu geystayo ay kala dileen adeerkii iyo ninkaaniiti isagana markaa Tawfiiq adeerkii uu dilay oo hore loo dilaayay ninkaaniiti Haadi aabbihii. Haadina waxa uu dilay isaga awowgii aabbihii dhalay yuu dilay. Arrintaaniiti argagaxeeda ay markaa leedahay. Ilaa dhamaadka hadiyadna la soo gaartay oo aad ku mahadsan tahay daawashada aad ku bixisay muuqaalkan. Fadlan nagu taageer in muuqaalkaaniiti aad like gareyso siina share gareyso si meel dheer uu gaaro. Haddii aad ka mid yihiin bahweynta kugu xiran channelkan ugu dhiirigelina channelka aad ku soo biirtay. Muuqaalkan muuqaalka xigaya noo balana.